ilaahay xikmadiisu way badan tahay ciidu doono ku soo diraya maxaynu ka baran karnaa hadaba dhacdada ninkan ku dhacday Kuwaitiga ninkan Kuwaitiga ayaa wuxuu ka warramaya dhacdo aad u layaab badan oo ku dhacday wuxuu yiri waxaan ku noolaa wadanka Kuwait laakiin hooyaday waxay la noolayd walaashay oo ku nool wadanka Bahrain marka hal mar ayaan go'aan gaaray inaan hooyaday u tago oo Bahrain ku nool kadibna Bahrain ayaan tagay oo guriga walaashay ayaan ku dagay hadaba goor habeena ayaan hal mar go'aan gaaray oo furihii gaariga intaan qaatay ayaan gaariga kaxeeyay anoo guriga ku iloobay liisankaygii iyo moobilkaygiiba tawaano wadada maraya ayaa ciidamadii traafigu qabteen ama ciidamadii wadada maristu waxay u dhahan liisankaaga keen waxaan ku liisankay gurigan kaga yimid waxay u dhahan hadaba qof garaaco hela waxaan ku moobilkaygina gurigan kaga yimid wixii inta xiga waa la qabtay oo waa la xiray markii xabsiga la igu hubsaday ayaa xabsigii qolkii la geliyay waxa ku jiraba inaan yar oo naqan oo indaadiisu ku sheegay 14 jir hadaba inankii yaraaba yimid isagoo weydiiyay maxaa lagu soo xiray kadibna waxaan ku ridaa oo si cara labaan ula hadlay walow markii dambe aan u sheegay kadibna waxaan u sheegay in liisankaygii aan guriga kaga yimid si adraadeedna la soo xiray hadaba markaan qolka si fiican u eego wuxuu yiri waxaan arkay inankii yaraa mariyihiisa oo meesha sursuran waxaana ilaa kaatay inaan ka yar inuu muddo xidhnaa kadibna waxaan weydiiyay maxaa ku helay oo meeshan kugu soo xiray wuxuu yiri quraarad baan jabiyay kadibna waa la soo xiray wax la igu lacagta quraarada bixi lacagta quraarada waa imso baan ku yiri oo wuxuu igu yiri waxa weeyaan 100 Bahrainiya marka lacagta dollarka loo bedelana waxa weeyaan $265 weeyaan marka waxaan ku yiri lacagtaas waa lacag yar maxay iska bixin weeyay oo wuxuu igu yiri aabahay uu dhintay hooyadeena xaafadaha ay u shaqaysaa anigaana xaafada ugu weyn si adraadeed ma awoodno halkaas aan iskaga xidhnaa wuxuu markuu inta ay sheegay in yar kadib waxay yimid inaan naabti u ahay oo walaashay dhashay baa yimid kii baana liisankii soo qaaday sidii baana xabsiga kaga soo baxay markaan gurigii yimid hooyaday baan u sheegay dhacdadii hooyadayna waxay igu tiri arrintan waa arrin Ilaahay watay oo Bahrain waxaad uga timid adigoon u jeed badan lahayn haddana waa lagu xiray haddana xabsiga waxa soo dhaw lagu watay si inaan ka yar xabsiga ugu soo deyso oo kaarkaygan qaad oo inaan ka yar xabsiga ka soo saar sidii baan kaarkii ku qaaday buu yiri oo inankii yarana aan xabsiga uga soo saaray lacagtiina uga bixiyay halkaana waxa ka muuqanaysa Ilaahay xikmadiisu inay badan tahay Ilaahayna cid uu doono ay ku soo dirayaa mar walba qofku inaanu marnaba ka quusan Ilaahay naxariistiisa